weli waxaan ku xirnaay magaalada Burtile walaalayaal iga soo bixiya meesha laba nin waa u dhimatay saddex nin waa ku dhaawacantay khaas ahaan dadka daarood inay ninkaas gobonimada laga raaco oo sida ugu dhaqsiyaha badan meesha looga shiido bakiibkii saddexaad waxaan soo duubo weli waan maan helin wixii aan rabay saddex video laga duubay awal ayuu kula joogin laakiin markan oday daarood baa kula jooga insha Allah kuna ceebayo mayo oo tolkay way furanayaan Abdo Baashana waa ninka ay sheegnay wax badan waa nin reer iimeeya waa nin beesha jarar weynaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku suganahay saldhigga dhexe ee magaalada Burtile waxaan la joogaa oo imid Abdo Baashe oo ah oday Soomaaliyeed oo xamaalata ahaa oo hadda ka hor shil galay qadar Allah ku timid la ii sheegay inuu ku xiran yahay meeshan hal sano in ka badan waxaan rabaa inaan xaaladiisa idinka warbixiyo dhaqaalaha loo haystaa dad ku dhintay waa loo haystaa oo uusan ka soo dilin qadar Allah qof kastana wax ku dhaca weeye waxa soo cusub maaha dayac buu tirsanayaa laakiin in laga bixin waayay ama wax uu iskaga bixiyo waayay dhiigii uu galay cid ka cafisana ma uusan helin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka iyo meesha aan joogno oo hadda ka hadlayo xarun daaroodaba isagoo nin beesha jarar weynaa xarun daarood ay tahay meeshaan joogo inaan waxaan rabaa maanta wixii ka dambeeya dadka Soomaaliyeed ee hawsha u kacaan khaas ahaan dadka daarood inay ninkaas gobonimada laga raaco oo sida ugu dhaqsiyaha badan meesha looga shiidayo waxaan rabaa Cabdo inaan u dhiibo waxa nooga warbixiyo kadibna guddiga hadda ka hor hawsha soo bandhigay ayaan u dhiibi doonaa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayga islaamka waxaan ka codsanayaa bakiibkii saddexaad waxaan soo duubo weli waan maan helin wixii aan rabay weli waxaan ku xirnaay magaalada Burtile walaalayaal iga soo bixiya meesha waxaan ahay Cabdi Baashana Xareed waxaan ahay darawal shil gaari ayaan galay laba nin waa ku dhimatay saddexna waa ku dhaawacantay waxaan iskaga bixinay waayay walaalayga islaamka waxaan ka codsanayaa inay iga bixiyaan dal ii dibadda wixii jooga carruurta leeda 11 hagee joogaan awdaaq halkaan ka shaqeynaysaa u deganay awdaaq meesha shilka ku dhacay awdaaq iyo boosaasa ka shaqeyn shilka ku dhacay meesha Burtile ku dhacay korkeeda magaalo ku dhow aad iyo waka laba xasano waad insha Allah ka baxaysaa ilaahay idinka ka baxaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii saddex video laga duubay awal ayuu kula joogin laakiin markan oday daarood baa kula jooga insha Allah kuna ceebayo mayo oo tolkay way furanayaan waxaan u dhiibayaa xaafid oo ka mid ah guddiga hadda ka horna hawshiisa ka hadlay isaga loo sheegi doona waxay gacanta ku hayaan waxa dhiman sida waxay yihiin inta asaga nooga faahin doona waxaan joognaa saldhigga booliiska degmada Burtile waxaa galabta saldhigga soo booqday Kabtain Ayuub oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii deegaanada Puntland iyo deegaanada SSC marayay Kabtain Ayuub waxa lagu yaqaanay oo daqnashada iyo u qareemida General Ayuub u qareemida dadka maxaan ku tabaaraysan runtii toos buu u yimid saldhigga guddigiina waa u yeeray waxaan ka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed sida uu generalku inoo sheegay inaynu furanno maxbuus iyo musaafir walaalkeen Abdo Baashane oo runtii aan ahayn guddigu u qareemayay dhaqaalaha lagu leeyahay waa dareemi ka dhaaro waa dhimasho laba nin ah iyo dhaawac saddex nin ah iyo gaari ku burburay marka dhaqaalahan haynaana meesha aan rabnay iyo meel u dhow midna ma gaarsana waxaan dareemi lahayd inaan soo bandhigi lahayn dhaqaalaha haddaan dhaqaalo fiican aanu haysano marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed iyo generalka insha Allah taala baaqis inay ka soo jawaabtaan ilaahay waxaan ka rajeenaa wiigan gudihiisa ama laba bari gudaheed inuu Abdo Baashane oo xor ah iyo generalka ka soo noqday kaalkacyo in xalfad weyn aynu Burtile ugu dhigno saasaan rajeenaa Abdo Baashana waa ninka ay sheegnay wax badan waa nin reer iimeeya waa nin beesha jarar weynaa reer iimeey markii la tagay oo dadkii joogay loogu tago eelkiisa ahaa dadkii dhibanayaasha baa ugu tagay markay u tageen waa ka soo noqdeen mobiladoodii bay dib u gateen markay waayaan wax kale waa ayagoo u garaabaya oo aan u xanaaqsanaan bay ka yimaadeen halkan wuxuu u joogaa cid u maqan oo islaamka Soomaaliyeed aan ahayn oo kale ma jirto Burtile ku xiran yahay wuxuuna sugayaa qof kasta oo bini aadan oo Soomaaliya oo islaam ah oo wax tar ah waxaan jecelnahay in sida generalku sheegay laga soo jawaabo lacagtaasna laga soo baxsho wixii aan haaban karno iyo waxaan haalan karno hadda baahida noogu weyn aan u baahanay waa $25 aad iyo aad baan waxaan u codsanaynaa lacagta la ka soo jawaabo waa mahadsantiisaan laga warbixiseen
abdowna waxaan leeyahay inaad niyadda khayr u sheeg waa ka baxaysaa waa hubaa haddii ilaahay idmayna ka baxaysid meeshaan ciyaalkaagii waqti la qaadan doontid dad Soomaaliyeed baan nahay dad wada dhashay baan nahay dee anigu haddaan maanta iimay joogo xabsiguma daawateen dadka aan la hadlayna kugu daawamayaan alla kugu daawan mayo insha Allah waan rajaynayaa walaalka Soomaaliyeed ee xamaalatada ahaa ee 12 carruurta iska leh ee carruurtiisa sugayso ee maanta wuxuu ku sugan yahay ciyaalkiisa ku sugan yahay garanayn ee haddana xabsi ku jira waa dareemaysaa xaaladiisa qof kastoo damiir la dareemaya waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan arrintaas oo sida ugu dhaqsiyaha badan akoonnada wax lagu soo diray wax oo dhan video waad ku arki doontaan khaas waxaan oga sii hadlayaa meesha uu ku xiran yahay deegaankan dadka iska leh ee daarood waxaan leeyahay hawsha xil gooni iska saara markii Soomaalida xagga laga dhigo muslimiinta xagga la tago xil gooni ay sii saaran jawaabteeda waa idinka sugayaa insha Allah maalin ama labo waa waqtigiisii ka bacdina waa ka soo warbixin doona xaaladda Abdul Baash waana salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh